kulanti wacan daawaday ku soo dhawow musalsalka qof oo lansaday canshaqa xalqada 168 oo ah xalqada maanta oo cusub. xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshii ay ku dhamaatay tii hore markii Saay ay diidaysay inay cuntada cunto. waxay leedahay qoyskan cuntadoodana uma baahni, gurigoodana ma rabo, fadlan cuntadiina cashta, guryihiinana isaga noqdo. anigu gurigan inaan ku soo laabto macquul ma ahan. hal mid ayaan ugu soo laaban karaa gurigan, midaasna waxay tahay haddii Bafani ay iraali gareynayso, qoyska dhanna ay iraali gareynayaan maadaama ay qalad iga galeen. intaasi kadib Bafani waxay leedahay anigu dumar badan waan soo arkay intaan ifka ku noolaa, laakiin adigoo kale gabar yahay waligay ma arag. Saay waxay leedahay waa macquul anigoo kale inaadan waligaa arkin, anna waxaan kuu sheegayaa haweeney adigoo kale ah nolosheeda waligay ma arkin. intaas kadib Saay waxay la hadlaysaa Firaad, waxay leedahay orod gudaha iska gal, waan ogahay saaxiibta baaqi inay si waali ah kuu sugayso, hadeerna fursad badan ayay helaysaa ay kula sheekaysato. marka saaxiibta waqti wacan la qaado, inta meeshan ha taagnaanin, iyadana intaa waqti ha kaga lumin, gudaha gala, isla baashaala, isla sheekaysta, fursad fiican ayaad haysataan maadaama Saay ay idinka maqan tahay. Firaad wuxuu leeyahay isagoo gudaha sii galayo, gabadhan warkeeda xun ma dhageysan karo iyo hadalladeeda qayaaliga ah. guduhu sii galaya, baaqina way raacaysaa. haweeneydii Bafani waxay leedahay gabaryahay Saay mid aan kuu sheego, adigoo waxaad isku mooday inaad baalal leedahay, waxaadna rabtay inaad si fiican u duushid, weliba hawada sare gashid, yacni kibir iyo isla qaadqaad ayaad waday. sidoo kaleetana gurigan inaad adiga ka talisid ayaad isku maleynaysay ayay ka wada. waa hadal sarbeeb ah. marka baalashii aad ku dooleysay ugu dambeyn waa la jaray, hadeerna dhulkaad soo degatay adigoo weliba markan isdhiibay. Saay waxay leedahay qofka markuu rabo inuu duulo baalal uma baahno, ay wuxuu u baahan yahay karti iyo awood iyo dhiirigelin. hadalkaas ayaa loogu jawaabay. Bafani iyadoo caraysan ayay albaabkii xiraysaa, ileen Saay mar walbay hadal ku dhahdo, Saay ma ahan qofkii hadalkaasi si tartiib isaga qaadanayay, hadalkii lagu dhahaa mid ka daran ayay ku jawaabtaa. Bafanina jawaabaha Saay ayay dhibsatay, albaabkii way xirtay, gudahii gashay. usha mooshi waxay leedahay marnaba isma lahayn, Saay oo ficil fiican samaysay ayaa sidan dhan loo ciqaabayaa. Saay marnaba isma lahayn ciqaabtan dhan inaad mutaysan doontid. Saay waxay leedahay wax dhiba ma lahan, anigoo ciqaabtan wax dhiba uma arko, marba haddii Difyani farxad dareemayso, anigana farxad ayaan dareemayaa. muuqaalka xiga waxaana la tusayaa dhinaca kaleeta Difyani iyo ninkeedii Bulkid waa habeenkoodii koowaad ee aqalgalka. Difyani waxay leedahay caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aan adiga kula midoobay intaanu sano kadib. arrinkaasna waxaa u sabab ah Saay oo nagu caawisay. Bulkid wuxuu dhahayaa intaanu sano adiga unbaan kaa fikiri jiray intaad iga maqnayd oo dhan, haddaba aad iyo aad baan uga faraxsanahay inaan adiga dib isku helnay. Difi waxay dhahaysaa hooyadii waa qof xun, Bafani bay ka wadaa. markaasay leedahay waxay isiin jirtay daawo xun, mar walbo daawadaas aan cabana waan seexan jiray, markaan seexdana adiga kaliya ayaan kugu riyoon jiray. haddaba wuxuu dhahayaa hadda kadib dhibkaas dhan ma la kulmi doontid. waxay leedahay waxaad ii sheegtay aawa gabadheydii Harini, gabar ayaan dhalnay ayaad i dhahday, waxaan rabaa inaan hadeer la kulmo ee u wac gabadha. wuxuu leeyahay beri subaxdii ayaad gabadha la kulmaysaa, laakiin caawa habeenkiina adiga ayuu inoo qaas yahay, cid kaleetana ma soo dhexgalayso. waxay leedahay caawa habeenkiina inoo qaaska ah waxa u sabab ah Saay. Saay waa inaan si fiican uga mahadcelinaa, mad u wacdid taleefanka u dirtid inay guriga timaado ayaan rabaa. wuxuu dhahayaa Saaydii aan ogaa marnaba ma ogolanaysa inay halkan imaato, sababtoo waa qof xishood badan, sidoo kale tan xeerka ilaalinayso. xitaa hadduu Firaad guriga kasoo eriyo oo guri la-aan ay ku dhacdo, ma laga yaabo inay halkan imaato, waan ogahay. markaasi Difyani waxay leedahay maxaad ka wadaa? wuxuu dhahayaa Saay waxa ay samaysay wax aan caadi ahayn weeye, sababtoo ah labadeena ayayna caawisay, sida awgeed Firaad iyo qoyskiisaba ma aqbali doonaan Saay, dhab ahaantiina guriga way ka soo saari doonaan.
markaasay Difiani waxay leedahay taasi suurtagal ma ahan sababtoo ah Sai waxay jeceshahay Firu waxay dhahdaa Firaad isagana wuxuu jecel yahay Sai, labadooda way isjecel yihiin. Marka Firaad inuu Sai guriga kasoo saaro suurtagal ma ahan. Dhinaca kaleetana jaceylkooda weli iskumaysan sheeganin. Wuxuu dhahayaa Bulkid arrinkaas aniga horay umaba ogeyne. Markaasay dhahaysaa Difiani Sai iyo Firaad way isjecel yihiin welina iskuma sheeganin. Bulkid wuxuu ugu duceynayaa labadooda in jaceylkooda markaasi ay hirgalo ay labadooda is helaan. Dhinaca kaleeto ninkii Firaad ahay xilli hore ayuu soo kacay subaxdii ayaa la gaaray. Ashwani ayaa sheekh qoyska u diyaarisay. Waxay leedahay Firaadow xalay ma aadan seexanin miyaa mise subaxnimadan ayaad xilli hore soo kacday? Wuxuu dhahayaa waad ogtahay hooyo subaxdii inaan dhaqso soo kaco oo jimicsi iyo aalamiito aan aado. Waxay leedahay haa waad aadi jirtay laakiinse sida shaqada ugu biirtay waad joojisay jimicsiga iyo aalamiitada sidaasan kuu weydiiyey. Marka Saina miyaad aragtay? Wuxuu dhahayaa Sai ma arkin waxna igama gelin jimicsigayga ayaan wataa aniga. Bafani ayaa markaasi usoo galayso labadoodii oo doodayaan. Ashwani xilli ay leedahay aniga wiilkayga ayaad tahay waan ku garanayaa wax walbood damacsan tahay ee jimicsi miyaad usoo kacday mise wax kalaad usoo kacday? Bafani markay soo gasho waxay leedahay Sai iyo Ushamosh weli banaanka ayay fadhiyaan ayaan u maleynayaa. Waxayna doonayeen inay deriska nagu ceebeeyaan halkaasna sumcadeena dhulka la galaan. Firaadow adiga jimicsi ka imaaday miyaad aragtay Sai? Wuxuu dhahayaa ma arkin mana rabo inaan arko mana rabo inaan ka hadlo. Haddaba waxay leedahay Bafani waxaan ka cabsanayaa Sai inay markaasi qoyska nagu ceebeyso ama deriska. Gabadhii Sai ee deriskii isugu soo wacday markii hurdada kasoo kacday subaxnimo banaankay jiifatay. Ushamoshina way la jirtay. Deriska markii isugu wacdo deriskii ayaa qayb ka mid ah imaanayaan. Waxay leedahay aniga ma i taqaanaan? Waxay dhahayaan haa xalay oo dhan inta ayaan seexday halkan ayuu waagi iigu bariyay. Waxay dhahayaan maxaa dhacay inoo sheeg. Waxay leedahay ninkayga Firaad ayaa guriga iga soo saaray. Ushamosh waxay isku dayaysaa inay Sai celiso misana ay dhahdo joog waxba ha sheegin. Saina waxay leedahay wax fiican baan sheegayaa deriska ayaana i caawinayaan. Derisyo haddaan runta idin sheega ma i caawinaysaan? Deriska waxay leeyihiin haa waa ku caawinaynaa bal waxay dhacay noo sheeg. Waxay leedahay Sai ma garanaysaan gabadha Difiani ah? Deriska waxay dhahayaan haa waa garanaynaa soo ma ahan gabadhii fakatay ee ninka la baxsatay. Haddaba intaas markay dhahdo kadib muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Ashwani weli waxay difaacaysaa Sai. Waxay la hadlaysaa Firaad. Waxay leedahay wax fiican maadan samayn. Wuxuu dhahayaa aniga arrinka Sai ku saabsan inaan ka hadlo ma rabo subaxnimadan. Waxay dhahaysaa adiga askari ayaa tahay waxaad ogaataa waajibaadkaada haddii aad ilaalinaysid sidoo kaleetana waa inaad ilaalisaa waajibaadka guriga. Sai gurigan adigaa keenay shalay sidoo kaleetana iyadana kaskeeday ku timid. Marka maanta inaad isla adigii gabadhii aad mas-uulka ka ahayd inaad dibadda u saartid wax ila qoman ma ahan. Waxaa meesha imaanayaan Firaad aabihiis iyo Omkar. Markaasay Bafani waxay leedahay kaalay dhegeysta bal Ashwani waxay sheegayso. Weli waxay ku qaylinaysaa Firaad welina waxay difaacaysaa Sai. Ashwani waxay leedahay qaladkan u jiida anigu qaladkana mar walba waan ka hortagaa. Firaad wuxuu dhahayaa anigu ma rabo inaan barnaamijkan ka hadlo. Ninkeedii ninan iyo waliba Omkar ayaa ku qaylinayaan Ashwani. Sonali waxay leedahay anigu waxaan la yaabay sababta Sai ee Ashwani ee u difaacisay Sai. Ashwani waxay leedahay Sai way mudan tahay. Dhinacaas intaas kadib waxaa meesha imaanaysa Baaqi. Waxay leedahay wax ma ogidiin kaalay arka Sai waxay sameynayso. Ileen Baaqi balkoonka kore ama dabaqa kore waxay ka aragtay Sai oo markaasi la hadlayso deriskii. Saina deriska waxay tiri waxaad ogaataan gabadha Difiani ah in markaasi ay jecleed Bulkid. Qisadii Bulkid iyo Difiani ayay meesha ka sheegaysaa in labadooda is rabeen laakiin qoysku isku diideen. 10 sano ka hor la kala geeyay iyagoo waliba nin iyo xaaskiisa ah. Marka la kala geeyay kadibna gabadhan ay xanuunsatay xoogaa maskaxaana ay isdhex martay maadaama ninkii ay jecleed laga fogeeyay. Intaas kadibna daawooyin qaldan ayaa la siin jiray. Haddaba maanta uu soo laabtay ninkii Bulkid ahay. Markuu soo laabtayna wuxuu rabay gabadhii
uu ogaaday in gabadha aysan guursanin, waayo waxaa loogu sheekeeyey horay in uu gabadha guursatay nin kaleeto caruurna ay dhashay. laakiin maanta markuu ogaaday inaysan gabadha weli guursanin, caruur kalena dhalin, gurigan ay joogto, ayuu xaaskiisii inuu dib u helo damcay, maadaama shalay uu ahaa nin faqiir ah laakiin maanta uu yahay nin shaqaysto, sumcadna bulshada ku dhex leh. haddaba derisku waxay dhahayaan gabadha marka hore waxay ahayd gabar kaftan badan, laakiin maskax ahaan waa gabar xoogaa xanuunsan. saayi waxay leedahay waa runtiin way xanuunsan tahay, laakiin markii jacaylkeeda laga fogeeyey ayay xanuunsatay. hadeerna waxaan ku kalsoonahay in markaasi haddii jacaylkeeda dib u hesho ay caafimaadayso. aniga ayaana dib u midaysay labadoodii, aroos labad ayaan u dhigay, qoyskana sidaas ay guriga iga soo saareen. bal ka warama arrinkaasi ma cadaalad baa in qoyska ay kala geeyaan laba qof isjecel, sidoo kaleetana weliba lagu diido bulkid sabab la xiriirta inuu dhalay nin gurigan shaqaale ka ahaan jiray. sidaas way sababta loogu diiday bulkid gabadhan, wax kaleeta ma ahan. waxay dhehaysaa bulkid aabiis ayaa gurigan shaqaale ka ahaa, marka isagii sidaasa gurigan ayuu kusoo koray. marka waxaa la leeyahay cid xun ayaad kasoo jeeda oo faqiirin ah, gabadhiina uma qalantid. sidaasaa wiilkii loogu diiday gabadhii. sidaas ogaada, dariskii ayay u waramaysaa gabadhiisa ay ahayd xilli ushaamuushi isku dayeysay ay lahayd saay maxaad sameynaysaa jooji. saayna waxay leed ma joojinay, runtaan sheegaya. haddaba baaqi way soo oroday, waxay leedahay waxaad ogaataan saay inay wax xun sameynayso. markaasi bafani waxay leedahay wax xun ha samaysa ama wax fiican ha samaysee, adigoo hadalka inoo dhammaystiro, inoo sheeg maxaad aragtay. baaqi waxay leedahay waxaan arkay saay oo deriska la hadlayso, misena waxay dhahaysay firaad ayaa guriga iga soo saaray, anigii ushaamuushiba xalay intaan seexanay guriguu naga soo saaray. hadalla noocaas ay dhahaysa ayaan maqlayay. marka saay way nacaybaysanaysaa. sonali meeshay taagan tahay, su-aal bay weydiinaysaa ashwani. waxay leedahay ashwani, adiguma waxay kula tahay saay haddii aan guriga ka saarnay inaan qalad sameynay? haddaba baaqi hadalkay sii wadataa, waxay leedahay saay waa inaan joojinaa, haddii kaletana way nacaybaysanaysaa oo qoyska sharafkiisii bay dhulka la galaysaa. ashwani waxay leedahay hadalkaada caddee baaqi hadalkaada kala saar oo caddee. su-aashaas ayay weydiinaysaa. xalqadana meeshay ku dhammaanaysaa xilli baaqi isku dayeysay in ay qoysku kusii dirto gabadha saayi ah. ashwanina mar walba waxay isku daydaa inay saayi difaacdo, waxayna tiri baaqiyey hadalkaada kala saarsaar, waxaad sheegaysad si fiican u kala cadday, maxaad damacsan tahay. haddaba xalqada beri ayaan ogaanaynaa saayi iyo qoyska maxaa dhexmari doono, kolay dagaal baa dhexmari doono. bafanina waxay lahayd uma malaynay saayi ayadoo sidaas aan ula hadalnay inay soo laaban doonto. ashwanina waxaa niyada ku haysay inay saayi meeshan isaga tagto maadaama si xun loola dhaqmay. saayina waxay wacad ku martay inay markaasi difaaci doonto bafani, qoyskan xumaantoodana banaanka keeni doonto ayadoo deriska ku caybaysanayso. ninkeedaba firaad baa ugu horeeyay. bafani maxay sameyn doontaa? saayi maxay tallaabo qaadi doontaa? ma guuleysanaysaa? firaad weli qalad miyuu u fahmi doonaa saayi, mise wuu dareemi doonaa? kaliya wuxuu ku dareemi karaa ama ku fahmi karaa inay saayi saxan tahay oo markuu baaritaan ku sameeyo kiiska bulkid, misena uu ogaado in bulkid uusan horey u guursanin ama difyaani kadib inuusan guursanin. haddaba xalqada meeshay ku dhammaatay waxaan idiin raacinaynaa goosgooska ama hordhaca laga soo bandhigay xalqada 169aad ee beri la daawanayo. waxaana lagu tusayaa goosgooska saayi oo dhehayso derisyahow garab ayaan idinka rabaa, qisadoo dhan waan idinkaga sheekeeyey. hadeer dadkan waxay doonayaan ama qoyskan rabaan inay baabi'iyaan nolosha gabadhan maskiinta ah ayaan gurigeedii mar labaad dib u dhisay. haddaba waxaan rabaa inaad garab isiisaan, qoyskana aad ka hor timaadaan, cadaaladana banaanka timaado. firaad banaanka uu soo baxayaa, wuxuu leeyahay saayi maxaad sameynaysaa? xadkaada ayaad soo gudubtay, halkan maxaad ka sheegaysaa buu dhahayaa. iyadana waxay leedahay aniga guriga way iga soo saareen, waan idin sheegay, laakiin taasi wax dhiba uma arko. hadeer waxaan ka fikirayaa kaliya inay weeraraan ama wax gaarsiiyaan ama ay burburiyaan qoyska cusub ee yeelatay gabadha difyaani ah. haddaba xalqada beri ayaan ku ogaanaynaa saayi haddii guuleysanaysa iyo haddii kaleeto.
baaqidii masiirka badneedna waxay samayni doonto aan aragno, ilaan iyada waxay jeceshahay mar walba inay saay xumaanteeda ka shaqayso, sidoo kaleetana fikrad ay soo jiidato. intaasaan kusoo gabagabaynayna, wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.